kulanti waxaan daawadayaal halkani waa caasimada TV ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararkeena waxaana kamida Ra'iisul Wasaare Roble oo kulan la qaatay beesha caalamka iyadoo qodobo muhiim ah ay ka soo bixeen kulankaasi. Dawladda Jarmalka oo xayiraad ku soo rogtay hay'ad la ogaaday inay dhaqaale siiso ururada Al-Shabaab iyo Xamaas. mucaaradku oo sheegay in xal laga gaaray qaar ka mid ah qodobo hortaagnaa doorashooyinka dalka kadib kulan ay la qaateen beesha caalamka. qarax sababay dhimasho dhaawac oo Muqdisho ka dhacay. webiga Shabeelle oo fatahaad ku sameeyay magaalada Jowhar iyo deegaano hoostaga. intaas waa qaar ka mid ah wararka aan idin hayna xilligan kuwooda ugu waaweyn imikana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. intaynanu gudagalin wararkeena daawada haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir haddaad horey noola joogtayna sheer garee oo like garee muuqaalka gaarsiina saaxiibada kula midka. waxaan ku bilaabayaa wararkeena. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay inay soo dhisto ciidamo khaas oo fuliya amniga doorashada kuwaasi oo loo wada dhan yahay dhexdhexaadna ah. hadalkan ayaa Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu ka sheegay xilli uu kulan la lahaa xubnaha beesha caalamka oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in ciidankaasi ku shaqayn doonaan xayndaabka sharci kadib markii wadatashi la sameeyay dhammaan saamilayda siyaasadda. waxa uu sheegay in kadib markii wadatashi la sameeyay maamul goboleedyada uu diyaar u yahay inuu dalka ka hirgeliyo doorasho asaaskeedu yahay heshiiskii 17 Sebteembar. Roble ayaa sheegay in caqabadaha kaliya ee hortaagan doorashada ay tahay dhamaystirka heshiiskii 17 Sebteembar iyadoo loo sii marayo talooyinka shirka Baydhabo. waxa uu ugu baaqay qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka inay bilaabaan qorshayaasha ku saabsan taageerada dhinaca tasiilaadka farsamada iyo dhaqaale ee loo fidinayo hanaanka hirgelinta doorashooyinka. madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan u sheegay baarlamaanka in uu qabanqaabada iyo amniga doorashada u xil saaray Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Soomaaliya. mucaaradka ayaa iyaguna inta badan ku doodayay in howlaha amni iyo doorashooyinka si dhammaystiran loogu wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Soomaaliya. wakiilada beesha caalamka ayaa maanta kulan la qaatay xubno ka mid ah midowga musharaxiinta xilli wali uu taagan yahay khilaafka doorashada. kulanka oo ku qabsoomay aaladda la iska arko ayaa waxaa ka qayb galay dhinaca beesha caalamka safiirada Ingiriiska, midowga Yurub, Mareykanka iyo qaramada midoobay. hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in kulanka looga hadlay shaqaqooyinka u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo khilaafka doorashada. waxaan u sheegnay in ciidanka diiday muddo kororsiga ay mahadcelin naga wada mudan yihiin maadaama ay waaqac u turjumeen rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo baaqidii beesha caalamka ee ku aadanaa muddo kordhinta ay samaysteen hay'adaha dawladda, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. sidoo kale shirka ayaa waxaa kaloo looga hadlay sidii loo taageeri lahaa dadaalada uu wado Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ee la xiriira qabashada doorasho lagu wada qanacsan yahay. Jarmalka ayaa ururka Islaamiga ee Al-Ansar waxa uu ku soo rogay xayiraad dhaqaale kadib markuu ku eedeeyay inuu taageero u sameeyay Xamaas oo Falastiin ka dhisan iyo waliba Al-Shabaab oo Soomaaliya ka dhisan. waxaa go'aankaas xayiraada soo rogay wasiirka arrimaha gudaha, dhismaha iyo jaaliyadda dawladda federaalka ee Jarmalka oo lagu magacaabo Horst Seehofer. dawladda Jarmalka ayaa maanta Arbaco ahayd ku dhawaaqday inay mamnuucday ururkan caalamiga ah oo ka hoos shaqeeya ururo dhowr ah oo fadhigoodu yahay magaalada Düsseldorf ee dalka Jarmalka. shabakadan waxay maalgelisaa argagixiso ku nool adduunka, sidaas waxaa yiri afayeen lagu magacaabo Steve Adler oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay. waxaana intaasi sii raaciyay haddii aad doonaysid inaad la dagaalantay argagixiso waa inaad ka jartaa ilaha dhaqaalaha. wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka ayaa sidoo kale ururkan Islaamiga ah ku eedeeyay in ay dhaqaale badan u dirto ururo ku kala sugan dalal kala duwan sida Al-Nusra oo Suuriya ka aasaasan, Xamaas oo Falastiina iyo Al-Shabaab oo Soomaaliya ka dhisan. website-ka Al-Ansar International ayaa la soo dhigay fariin dadka looga dalbanaya inay caawinaad u sameeyaan dadka gaar ahaan kuwa ku nool wadamo kala duwan sida Lubnaan, Suudaan iyo Falastiin. wararka naga soo gaaray degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku geeriyoodeen, qof kalena uu dhaawacmay kadib qarax miino oo la eegtay gaari nooca loo yaqaan Land Cruiser-ka oo marayay degmada Kaxda. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxan oo ahaa mid lagu aasay jidka dhinaciisa, isla markaana dadka geeriyooday iyo haweeneyda dhaawacaba ay dhammaantood saarnaayeen gaariga. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dadkan ay ka yimaadeen xarunta degmada Kaxda.
hay-adaha ammaanka iyo dambi baarista ayaa gaaray goobta qaraxu ka dhacay kuwaasoo baaritaan ku sameynaya dhacdadan. ma jirto wax faahfaahina oo ilaa iyo hadda laga bixiyey qaraxaasi iyo cidda ka dambeysayba. dowladda dalka Kenya ayaa ku howlan dhisidda xayndaab ka kooban biro shub iyo silig danabaysan oo ay ka dhisayso xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya, iyadoo mashruucaasi oo la bilaabay sanadkii 2015 ay ku kici doonto lacag dhan baa la yiri 3.4 bilyan oo dollar. dhowr sano ayay qaadan doontaa sida loo dhamaystiri lahaa dhismaha xayndaabkaasi. qorshahan ayaa waxay sheegtay inuu qayb ka yahay dadaalka ay Kenya kaga gaashaamanayso weerar uga yimaada dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay ka fuliyaan gudaha dalkaasi. Kenya ayaa waxaa sidoo kale qorshaha ugu jira inay baro waaxda dhismaha xayndaabka oo ku noqonaya xayndaabka Israa'iil ka dhistay dhulka reer Falastiin ee daanta galbeed ee ay Israa'iil haysato oo kale. xayndaabka Kenya ka dhisayso 700 kiiloomitir oo kamid ah xuduudka Soomaaliya la wadaagto waxa kale oo la sheegay in laga hirgelin doono baro dhinaca socdaalka iyo canshuuraha iyadoo lagu rakibi doono kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga. mashruucaasi ayaa waxa kale oo uu ka kooban yahay ugu yaraan 22 bar kantaroolka xuduudaha oo ay ka howlgali doonaan ciidamo aad u qalabaysan si ay uga hortagaan weerar kasta oo Al-Shabaab uga yimaada. saraakiisha Kenya waxay kaloo sheegeen in marka la dhamaystiro dhismahaasi inay kooxaha ammaanka lagu ballaarin doono ilaa masaafo gaaraysa 40 kiiloomitir si ay degdeg uga falceliyaan weerarada kaga imaan kara xuduudda Soomaaliya. wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in dad xog u haya mashruucaasi sheegeen inay dowladaha Mareykanka iyo Britain ka taageerayaan Kenya sidii loo dhamaystiri lahaa xayndaabka laga dhisayo xuduudka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. webiga Shabeelle ayaa fatahaado horle ka geystay tuulooyin hoostaga degmada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markii uu karkaarada jabsaday, waxaana saameeyay qoysas ku nool tuulooyinkaas iyo dhulbeereed baaxad weyn. qoysaska qaar ayaa ka sii barakacay tuulooyinka Baarey iyo Moyko. cabsi xoogan ayaa la daristay markii uu buux dhaafiyay webiga. dadka qaar ayaa awoodi waayay inay isaga baxaan labadaasi tuulo, waxayna go'doon galiyay biyaha oo jaray marinadii ay mari lahaayeen. isku socodka gaadiidka wadada xiriirisa Jowhar iyo Balcad ayaa istaagay sababtoo ah iyadoo biyo badan ay fariisteen wadooyinka, waxayna taasi dhalisay inay isu gudbi waayaan labadaasi degmo oo inta badan dadka ku nool ay u kala gooshaan. tuulooyinka kale ee ka agdhow meelaha webigu uu maro waxaa ka bilowday barakac xoog leh oo saameynaya dadka iyo deegaanka. walwalka ugu weyn ee haysta waa inay ka cabsanayaan inay waayaan marin ay uga baxaan haddii uu karkaarada jabsado. xilliyada roobka waxaa buux dhaafiya webiga Shabeelle oo karkaarada ku jabsada deegaanada uu maro maadaama ayna jirin biyo xireenno lagu xakameynayo biyaha xad dhaafka oo sabab u ah fatahaad uu sameeyay webigu. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddo 7 dib loo dhigay imtixaankii shahaadiga ee dugsiga sare. war-saxaafadeedka ayaa waxa uu qornaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya waxay la wadaagaysaa dhammaan bahda waxbarashada gaar ahaan mas'uuliyiinta dalladaha maamulayaasha dugsiyada, ardayda iyo waalidiinta in imtixaankii shahaadiga ee dugsiga sare dib u dhac kooban oo ah asbuuc. dib u dhacan oo ka yimid culeysyada soo kordhay maalmihii la soo dhaafay taasoo saameysay ardayda ayay wasaaraddu garowsatay in laga maarmaan ay tahay in ardayda la siiyo waqti dheeri ah si ay isugu diyaariyaan imtixaanka. haddaba wasaaraddu iyadoo ka ambaqaadaysa dib u dhacaas ayay waxay halkan idinkula wadaagaysaa in imtixaanka sanad dugsiyeedkan 2020-2021 la qaadi doono 29 bisha May ilaa iyo 2 bisha Juun 2021. sidaas daraaddeed wasaaraddu waxay ku boorinaysaa dhammaan ardayda ka qaybgalaya imtixaanka inay waqti siiyaan muraajacada casharada si ay ugu guuleystaan imtixaanka ayna u helaan natiijo ku habboon dadaalkooda. wasaaraddu waxay u rajeynaysaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan imtixaanka u fariisanaysa mustaqbal wanaagsan. warkii aad ka daawanayseen Caasimadda TV waa naga intaan warkan warxiga ku kulmi doono sidaas nabadgelyo.